وعرو wanaagsan dadweynaha ayna daawanayo meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale barnaamij gaaban oo aynu kaga hadli doono ama aynu diiradda ku saari doono shilalka iyo gawaarida dhibaatooyinka ay u leeyihiin bulshada iyo waliba khasaarooyinka ay u geystaan inta iyagu markaa la egyihiin. waa 12 abriil sanadku waa 2019 xaafaddu waa New Harley, Seattle, Washington. maanta ayaynu mayga la dhex qaadnay dadweyne Soomaaliyeed iyagoo markaa ka kala hadlaya afkaartooda iyo fikirkooda sida uu yahay sidaan horba idinkugu soo sheegay ku saabsan shilalka gawaarida iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin. waraysigeena wuxuu ku bilaabanayaa sida tan. imaam yaxya suufi magacayga waxaa leeyahay maxamed cali roble waxaan aad u magac dheerahay. magacayga waxaa la Aways Maxamed Xasan. magacayga waxa way Xanaan Saciid. السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa Aamina Hinde Umar. magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Abdi Xuseen. magacayga waa Faadimo Cabdi Naasir. magacayga Maxamed Diiriyaa la yiraahdaa waxaa ku magac dheerahay Maxamed Bongo waxaan deganahay magaalada Seattle. waxaanu dhowr qofood weydiinay su'aalo ku saabsan amniga wadooyinka. imise qof ayaa ku dhimata wadooyinka dalka Mareykanka sanadkii maalintiiba inay ku dhintaan waxa waxa ugu yaraan 500 oo kale. hadaa qiyaaso waxa dhihi lahaa 100,000 100 iyo ka badan way ku dhimataa shilal. wallahi horta shilalku aad bay u fara badan yihiin. maybe sanadkii wallaahi ma hayo totalkooda ma hayo laakiin dad badan baa ku dhintay. maxaan u maleynaa 9,500 meelahaas. ilaa iyo xisaab gaaris ilaa 500 oo kun oo qof. sanadkii 2017 waxaa dhintay 37,000 iyo 133 ruux. maxay yihiin sababaha horseedka ka ah shilalkaasi? wadan isla ugu weyn waxa waaye baraha bulshada iyo waxyaalahan cusub oo qof walba ku dhex jiro iyo qof dadka sarxaansan oo gawaarida wada ama xanuunsan. dad waxa u badan dadka dhalinyarada u dhaxeeya da'da 18 ilaa 24 iyo dadka waaweyn oo dadka oo retarded oo baawarta wada ayaa u badan. badanaa waxa dhihi lahaa dadka oo wax kale ku mashquulsan yihiin jidka si fiican ma fiirinayaan. qofka stress kale ama mashquul kale ku furan yahay telefoonkaas ayaa lagu maqay ilbirsiga saa loo jeestaa qofka shil buu gali karaa. iyo dadka laftooda oo aan xaquuq aan ilaalinin wadooyinkii loogu talagalay inay si macnaha fijiglaan la'aan ay keeni karaan. dadkoo fahansaneen jidadka si loo cross gareeyo iyo speedings. ma arki doonaa weligeen maalin aanay shil gaari cidina aanay ku dhiman. waa sidaan jeclaan lahayn waana dhici kartaa laakiin way fogtay. wallaahi waan rajaynaynaa laakiin wax suuragal ma aha. waa la arki karaa meelaha inay dhici doonto laga yaabaa ilaahay ku xirantay taas way dhici kartaa. haddii la dadaalo way dhici kartaa oo maya laakiin waxaan rajaynaynaa inaa shir la'aan noqono. haddaan isku taxagelino kulligeen ha. waa imise tirada la ogolaan karo inay shil gaari ku dhimato magaalada Seattle, Washington? waa imise tirada dadka familkaaga ah oon ogolaan karno inay shil gaari ku dhintaan? eber hadda ani saas u rabi lahaa war waa zero in aqbala qofna ma. weekends ka day dhintaan waxa wahay 5 qofood oo kale. weekdays ka 2 qof dhintaan wax la qaadan karo waa. qof dhan ku dhiman hadee shil tahay inuu qof dhan bo wallahi ani waxaan jeclaan lahaa inaan cidiba ku dhimanin. bishii ilaa 50 qof ama ka badan waa ku dhintaan shilalka. eber ma habboon tahay in tirada ku dhimato qof kasta ay zero ama eber ay ahaato? waa ilaa haddii la heli karo ilaahay waa ka baryanaa inuu zero noqdo wax dhimashada. wax ugu fiican waa hadii la heli karo inuusan qofna ku dhimanin shil. way noqon kartaa insha Allah ilaahay waan ka rajaynaynaa in ummaddu ay iska noolaato. saas waa la samayn karaa. zero way habboon tahay inay tahay eber. taxagelin karnaa intaasoo guud. waa tahay daawadayaal saaxiibayaal mar kale waxaad daawateen barnaamijkii aan idiin sheegay isagu ku saabsanaa shilalka gawaarida iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo weliba mayga aynu la dhex qaadna dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Seattle, Washington. waxaad arki doontaan toddobaadyada fooda nagu soo haya isagoo weliba af English ama luqadda Englishka ku bixi doona haddii ay biidmo. waraysigan anigu ah Maxamed Salaad Maxamuud Xabaab waxaan idiin qaaday ama idinkugu talagalay Runta News oo barnaamijkan isagu qaban qaabadeeda lahaa. mahadsanidin mar kale.